madaxweynaha Khaatumo Axmed Karaash oo sheegay in maamul xumo ay ka jirto maamulka Khaatumo uuna xidhay bangigii ku yaalay Dubai maamul xumo ka jirta Khaatumo maxay tahay iyagu ismagacaabay oo guddi dhaqaale iyo G9 iyo wax isku magacaaba ayaa dadka dhulbaante indhageysanaya dadka Khaatumo waxaan u sheegayaa account-kii Abu Dhabi maxay tahay Khaatumo lahayd inaan xidhnay oo aan xiray hadaan ahay madaxweynihii inaan waxba lagu shubin waayo ilaa hadda tan waanu laanahay wax allaale wax lagu dhaqaaqaan laanahay oo ay ku maxay tahay iyo meesha ay wax mariyaan baan laanahay marka waan u sheegayaa inuu la xiray toos inay ula soo xiriiraan halka kan ayaan u sheegayaa waan gartay codkaaga waxaa ka muuqata in uu jiro khilaaf dhexdiina ah qoladiina maamulka Khaatumo ah maana sida loo qaadan karaynin looma qaadan karo marka ninku uu goobta joogo waxa weeye wuxuu jecel yahay wax walba si straight ah inay u socdaan laakiin in dibad laga maamulo oo isbaaro loo dhigto wixii dadku bixinayay waa wax loo dulqaadan karo ma si wanaagsan maamulka Khaatumo waa u badan yahay kuwa ayaa dusha laga saaraya markaa maya guddiga dhaqaalaha ee dibadda jooga weeye waxay magac wax ma sheegteen kuwa dibadda jooga weeye war kama hayaan waxa waa niman maxay ahayd dibad iska meeraysanaya waxa laale waxay ku soo kordhiyaan ma jirto meesha la yiraahdo Khaatumo waan gartay wada shaqeyntiina gudaha maamulka Khaatumo ka waran xaaladeedu suu yahay guduhu waa fiican yahay Faransi baan joognaa annagoo madaxweynayaal ayaanu maxay tahay goobihii joognaa wax mushkiladii ma jiraa waa ku sheegi karaa kulay intaas aan ku sheegi karaa iska fiiriha harkada online الله السلامة وكقال أبويا واي أريلاكي أنيقا برقل واي كبح أبوي هرقل بوس مكوبنانا في هذا أبوي دلح لي معه SST أنيقا برقل صالح لي إمام See the land of the Jewish. إمام